Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your English teacher, Khalid Yunus Osman. Welcome to lesson 2. Do you speak English? Do you speak English? Englishka miyaad ku hadashaa? Waa conversation laba qof oo aan isgaranayn ay iswareysanayaan markaad aragto qof aanad garanayn, magaciisana aanad garanayn. Waxa aad ku soo jeedin kartaa ama attentionkiisa aad ku qaadan kartaa marka aad rabto inuu ku soo eego ama uu kula hadlo. Waxaad ku dhihi kartaa su'aashan ama hadalkan baad ku dhihi kartaa. Waxaad ku oran excuse me. Excuse me hadaa lagu yiraahdo waa adoo raali ah. Qof aan ku garanayn uu ku dhihi karaa magacaaga, magaciisa qofka hadaan garanayn excuse me oo dhihi karaa. Excuse me, are you Somali? Ma Somali baa tahay? No, maya, ma ihi. Do you speak English? English ka ma taqaan? English ka ma ku hadashaa? A little ama a little. Wax yar baan ku hadlaa, but not very well. Aad se uguma hadli. How long have you been here? Muddo intee lag baad halkan joogtay? How long have you been here? Muddo intee lag baad halkan joogtay? 3 months, 3 bilood. 3 months, 3 bilood. What do you do for work? Maxaad ka shaqaysaa? What do you do for work? Maxaad ka shaqaysaa? I am a barber. Waxaan ahay raisle. I am a barber. Waxaan ahay raisle. How about you? Adiguna. I am waxaan ahay a teacher. I am a doctor. I am an engineer. Wixii aad ahayd ayaad markaa sheegaysaa. Excuse me, adoo raaliya, are you Somali? Ma Somali baa tahay? No, maya. Do you speak English? English ka ma ku hadashaa? A little, wax yar, but not very well. Xoogsi uguma hadli. How long have you been here? Muddo intee lag baad halkan joogtay? 3 months, 3 bilood baan halkan joogay. What do you do for work? Maxaad ka shaqaysaa? I am a barber. Raislaan ahay. How about you? Adiguna. I am a teacher. Waxaan ahay macalin.